بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داوضي الكسور وهذا برنامجك بندق HBA برنامج كان جبهان تسمعنت وحي نكسو قادنينا warbixin xasaasi ah oo ay qortay mid ka mid ah majaladaha dhanka diblomaasiyadda ee waddanka Faransiiska ka soo baxa waa majalada lagu magacaabo Le Diplomat waxaana ay ka hadlaysaa tartanka baaxadda leh ee juqraafi siyaasadeedka ku salaysan ee loogu jiro Soomaaliya oo quwado waaweyn ay isku hardinayaan waxaana lagu soo warramay arrintaasi saameyn inay ku yeelanayso xasiloonida dhanka diblomaasiyadda tan siyaasadda iyo tan ammaan ee Soomaaliya oo sanadihii ugu dambeeyay ka soo kabanaysay dagaalo sokeeye oo waddanka ka dhacay inkastoo dagaalada ku lug leeyihiin kooxaha magaca diimeed ku dagaalamaya ay si weyn u sii kordhayeen sanooyinkii la soo dhaafay haddaba quwadaha waaweyn gaar ahaan Shiinaha Mareykanka reer galbeedka iyo sidoo kale wadamada gobolka ayaa waxa shabakadan ay sheegaysaa in tartankooda saameyn ku yeelan karo arrimaha Soomaaliya haddaba maxay tahay waxa ugu weyn ee laga hadlay macluumaadkaas ayaynu barnaamijka ku soo gudbinaynaa maxamed cabdi ayaa soo akhriyay warbixintan majaladaasi ay qortay maxamed bal waxaad inoogu bilowdaa ciwaanka sheekada iyo sida ay ku bilaabanayso warshadaha Le Diplomat ayaa cinwaan ka dhigay awoodaha caalamiga ah ayaa ku loolamaya sidii lagu yareysan lahaa xasiloonida Soomaaliya warbixintan oo uu daabacay wargeyska Le Diplomat ayaa ka hadlaya xaaladda bariqsan ee ku geedaaman Soomaaliya marka ay timaado goobta istiraatiijiga ee ku taalo taasoo ka dhigaysa waddanka meel saameyntiisa loo loolamayo oo u dhaxaysa dowladaha waaweyn ee kala duwan waxaana wargeyska ama warshadaha uu ku sharaxaya Soomaaliya inay isku dayayso inay dimuqraadiyad meel mariso abuurtana dowlad xasiloon oo saameyn ku leh gobolka ayaa waxay u muuqataa hadaf aan la gaari karin marka la fiiriyo xaaladda hadda Soomaaliya ku gadaado warshadaha ayaa xusaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu aad uga dheregsan yahay sida isha dhow loogu hayo maamulkiisa maaha oo keliya inuu madax u yahay dowlad nugul waxaa sidoo kale waddanka soo maray sanado badan oo dagaal sokeeye ah iyo waxa lagu tilmaamay argagixiso hase ahaatee madaxweynaha ayaa lagu sheegay in hadda uu majaraha u hayo waddan siyaasad juqraafiyeedka goobta uu ku yaal aawadiis ay dhalisay damac aad u weyn oo ka soo wajahan oo ku wajahan gobolka geeska Afrika iyo xeebihiisa iyo dhulkiisa ballaaran maadaama uu leeyahay xeebaha ugu muhiimsan caalamka xeebaha Soomaaliya waxaa lagu sheegay inay yihiin marinka ugu habboon ee xagga ganacsiga ee ku wajahan badda Carbeed iyo gacanka Cadmeed iyo sidoo kale kaabaha ku haya marinka Baabilmandib waxaana meesha ka fogeyn baa la yiri gacanka Suways wax kasta iyo cid kasta oo kontroosha biyahani ayaa waxa ay door xoog leh ku yeelanaysaa dhaqdhaqaaqa saliidda ee badaha maraya iyo ganacsiga caalamiga ee u dhaxeeya Yurub iyo Asia waa sida warshadahu hadal ku dhigay waa gartay waa yahay arrinka kale ee muhiimka waxa ka mid ah oo warbixinta lagaga hadlay dagaalka ka socda gudaha Soomaaliya oo al-shabaab ay ka dambayso maxaa laga yiri arrimahaasi warshadahan ayaa waxa uu xusayaa ururada diimeed ayaa wali waxa uu leeyahay dagaalka ay wadaan oo ay rabaan inay dhul badan oo Soomaaliya ka mid ah gacanta ku sii hayaan ayaa socda magaalada Muqdishona meelaha ay beegsadaan ayay ka mid tahay sidoo kale waxa ay canshuur ka qaadaan baa leeyahay baabuurta daabula waxyaabaha daruuriyaadka ah ee waaweyn iyo sidoo kale goobaha qaarna waxaa la leeyahay ciidankooda ayaaba lagu arkaa hase ahaatee yaa ka faa'iidaya baa leeyahay dhinacyada ka faa'iidaya yihiin baa leeyahay
qalalaasaha Soomaaliya ay wajahayso. Soomaaliya ayaa xaalad ku jirta dhinacyo loo kala jiidayo, iyadoo xukuumadda uu ku sheegayo warsidaha inay tahay mid daciif ah, laga yaabo inay masiibo ka dhacdo, iyo iyadoo soo jiidanaysa awoodaha waaweyn ee caalamka jira oo raba inay ka faa'iidaystaan qaska waddanka ka taagan si ay u abuuraan in ay gobolkan ay ka helaan meel ay ku nagaadaan oo joogto ah. waa gartay waayo arrinka kale oo majaladu ay ka hadlaysa waxaa ka mid ah wadamada gobolka ee dariska la ah Soomaaliya danaha ay leeyihiin iyo nuglaantan sida uga faa'iideysan karaan. warsidaha ayaa waxa uu xusayaa Ethiopia inay baadigoobayso hunguri weyn kaga jiro xeebaha Soomaaliya, waxa ayna raadinaysay fursad ay bad oga hesho kadib markii baddii ay lahayd ay ku lumisay wadaxaajoodyadii iyo madax banaanidii ee waddanka Eritrea la soo noqotay 1993 waxaana ay riixaysay in ay heshiisyo la gasho Djibouti si ay il dhow ugu hayso xeebaha Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ayuu warsiduhu leeyahay ayaa u arka Soomaaliya haddii ay Somaliland ka go'do in ay furi doonto dhibaato aad u weyn. Ethiopiana taa waxay u arkaysaa fursad ay si toos ah xeebaha Berbera iyo Saylac ay galgal ugu yeelan lahayd ee ku yaala waqooyiga Soomaaliya, waxayna laga yaabaa inay u aragto inay galgal ku yeelato. dhanka waqooyiga Djibouti ayaa waxaa ku sugan buu leeyahay military fara badan oo awoodaha waaweyn oo adduunka yimid, Maraykan ha noqoto, Faransiis ha noqoto, Shiina ha noqoto. Faransiiska oo hore dalkan u gumaysan jiray ayaa waxa uu gobolka ka dhigay sida waddanka Gibraltar loo yaqaano ee Yurub ku yaala mid u dhiganta ayuu Djibouti ka dhigay. militarigan faraha badan ee Djibouti jooga ayaa waxaa ka dhalan kara saameyn aad u weyn, waxayna gobolka ka dhigaysaa mid qarka u saaran in xagga badda marka ay timaado uu shil ka yimaado. sida laga soo xiganayo nin khabiir oo Dozan la yiraahdo, madaxweynaha waddanka Turkiga Tayyip Erdogan ayaa waxa weeye baa leeyahay xulufka ugu dhow Soomaaliya. waxa uu Turkigu maalgelin weyn oo xagga kaabayaasha ku sameeyay Soomaaliya, waxa uu ka dhisay airport iyo xarun militariga kumanaan Soomaaliya lagu tababaro. waa sida wargeyska hadalku u dhigayo ama warsiduhu. waa gartay waayahay marka laga hadlayo quwadaha waaweyn tartankooda waxaa soo hadal qaaday Djibouti inay saldhigyo military oo kala duwan ku yaalaan, laakiin walaaca weyn ee Washington waxaa ka mid ah Shiinaha iyo saameyntiisa. majaladu maxay arrintaasi ka tiri? Shiinaha ayaa ciidamadiisa waxa ay ku sugan yihiin waddanka Djibouti, halkaasoo uu ka dhigtay saldhiggii ugu horreeyey ee military uu ebed Shiinuhu dibadda ku yeesho, wuxuuna il dhow ku hayaa Soomaaliya oo fursad dheeraada uu ka heli karo oo ku xaqiiqsanayo xagga badda in laga abuuro waddo cusub oo u dhiganta midda lagu sheego xariirta ee uu ka dhisayo wadamada Aasiya Yurub oo xagga badda ah. Shiinaha ayaa waxa uu raadinayaa inuu xoojiyo saameynta uu gobolka geeska Afrika ku leeyahay, isagoo u dhisaya kaabayaal isgaarsiin, dekado. ma u arko kaliya baa leeyahay Shiinaha Muqdisho inay tahay caasimad ka baxsan meelaha uu galgalka rabo inuu ku yeesho, ee waxay noqonaysaa meel si muhiima isugu xirta Shenzhen gobolka la yiraahdo ee Shiinaha ku yaala ee dekada ah iyo dekada Rotterdam ee ku taala waddanka Netherlands. waa gartay arrin kale wuxuu ka hadlay wargeysku Soomaaliya hadda ay wado ama warsiduhu oo ah qorshahan dawladda ay wado ee ku aadan dimuqraadiyiinta dalka oo in doorasho qof iyo cod la qabto, xisbiyo siyaasadeed la sameeyo,
laakiin caqabadaha arrintaas ka horgudbin buu leeyahay dabaca madaxweynaha Soomaaliya ba halkaas inooga waran Maxamed. marka laga gudbo in isqabqabsi xagga siyaasadda uu jiro iyo wadamada ajnabiga ah ee awoodda waaweyn u hanqaltaagaya inay Soomaaliya galgal ku yeeshaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud warsaduhu uu ku sheegaya in uu ku xisaabtamayo sidii uu dimuqraadiyadda u xoojin lahaa dalka ka jirta asagoo soo afjaraya siyaasaddii qabiilka ku salaysneed wuxuuna rabaa inuu abuuro mabaadi lagu qabanayo doorasho qof iyo cod ah wuxuuna rabaa inuu dardar geliyo Soomaaliya inay noqoto wadan leh khad siyaasadeed oo casri ah saacatee hawshaasi uma muuqato mid aanan dhici karin sida uu Dawson hadalka u dhigayo hase ahaatee mana aha mid aanan dhici karin marka la fiiriyo muwaadiniinta Soomaaliya oo aad u kala qaybsan oo ishaysta iyo gargaarka dibadda oo uu ka doorbidi lahaa baa leeyahay in amniga wadanka la xasiliyo siyaasadana isbedel weyn lagu sameeyo madaxweynaha Soomaaliya wuu ogsoon yahay buu leeyahay aad bayna uga dhacsan tahay in wadanka Soomaaliya uu kaarka kaliya uu gacmihiisa ku jira uu yahay wadamada awoodda leh ee ku loolamaya in ay noqon karaan kuwa door ka ciyaara in ay la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya oo lagu sheegay in ay helayso miisaan caalami ah taasna waxay ku xirnaan doontaa baa leeyahay awoodda uu madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud sida uu warsidaha hadalka u dhigayo uu ku xoojinayo hay'adaha dawliga daciifnimada ka jirta dowladana uu awood ugu bedel lahaa sidii uu Soomaalida isugu dhafi lahaa gobolkana ay waxgal uga noqon lahaayeen xiriir wanaagsan oo la yeelan lahaayeen Soomaaliya hadda laguma tilmaami karo buu leeyahay sidii xukuumaddii burburtay 1900 ama fashilantay ee 1990kii hadda Soomaaliya waxay noqotay baa leeyahay wadan nabadoon oo dimuqraadi ah madaxweyne Sheekh Xasan Maxamuudna waxa uu ku riyoonaya halka falalka argagixisada ah iyo wadooyinkan caalamiga ee xagga badda ah ee ganacsiga caalamiga ah iyo awoodahan ku loolamaya sidii ay isu dhex uu uga dhex faa'iideysan lahaa uu abuuri lahaa mid asaga danihiisa u adeegta iyo dalka Soomaaliyeed waa gartay Maxamed haddii aynu intaas kaga gudubno warbixintan majalada la double maat ay qorayso laakiin Soomaaliya halis bay ugu jirtaa marka laga hadlayo quwadahan waaweyn sida dad badan ay sheegeen oo ah inaysan dhinacna raacsanayn taalaftigeeda ay keeni karto saameyn ay ku yeelato wadamada gobolka wadamada khaliijka Mareykanka dhinaca oo isku arkay Soomaaliya inuu muddo dhaqaale badan ku bixinayay Shiinaha dabac kaga jiro Ruushka laftigiisa hanqal taagaya isbalaarinaya marka waxaas oo iyadoo gudaha khilaaf uu ka jiro oo dalka la oran karo dawladdu inaysan boqolkiiba boqol gacanta ku wada hayn oo khilaafo siyaasadeed ay jiraan sidee loo maareynaya arrintaas su'aashaas waa su'aal xasaasi ah oo dhinacyo badan taabanaysa waa kala qaadayna shaki kuma jiro Soomaaliya inay meel istiraatiiji ku taalo badda ugu dheer Afrika ganacsigii wadamada Yurub tagayay ee hadda khalkhalka ay gelisay xoutiyiinta waxaad moodaa in wadamo badan ay daneynayaan in ay Soomaaliya galgal ku yeeshaan Soomaaliyana ayada danaheeda bay leedahay waxaa muuqata in ayadoo danaha Soomaaliya la eegayo iyo danaha wadamada awoodda leh ay leeyihiin ay ayagana u shaqeynsanayaan danahooda waxaa la rabaa inay Soomaalidu la timaado siyaasad hufan oo ayada dhinaceeda u janjeerinaysa waxaa laga marqaati kacay in Turkiga uu yahay xulufka kaliya ee Soomaalidu leedahay laakiin Soomaalida meesha ay dhibaatada ka haysato oo soo noqnoqota ayaa waxay tahay waxay ku jirtaa lugaha kula jirtaa meelo fara badan ururka
midowga Afrika wadamada bariga Afrika ururka jaamacadda Carabta ururka iskaashiga caalamiga ah waxaad moodaa in ururadaasi ay Soomaaliya ku jirto oo dhan marka hadda xiriirka ay Turkiga la leedahay laga reebo wadamada kale in qolaba ay dan leedahay maxaa u diidaya marka Soomaalida inay dan yeelato oo ay danteeda ka hormariso qolyaha kale danta ay leeyihiin adduunkii wuu isku dumdumaya qolaba dhinac ay raacaysaa wadamada BRICS Ethiopia ku biirtay Masar ayaa ku biirtay Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ayagana waxay raadinayaan saaxiibo cusub si ay meeqaamkii adduunka ku lahaayeen oo hadheertaan la isku haysto ay u sii haystaan Soomaaliya marka shax badan oo ciyaari karta ayaa gacanteeda ku jira ama kaarar badan ayaa gacanteeda ku jira sida oo qoraaga hadal ku dhigay laakiin waxa weeye kamari dhalinteeda waxay u taalaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo guddiga xiriirka caalamiga u qaabilsan baarlamaanka Soomaalida ah iyo jihaynta siyaasadda ay dawladda Soomaaliya oga mar dhalan karto midiyahaas iyo danahaasi isjeeraya khatartana amniga weli ay jirto sida khabirada qaar ay hadal ku dhigayaan inay u baahan tahay inay xeelaysato marxaladan caalamku kala guurayo ogoobay dawladda Soomaaliya hadda waxyaabaha muhiimadda gaar siinaya waxaa kamid ah kursiga wareega ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay ku jirtaa inkastoo golaha ammaanka galgalkiisa uu hadda aad u naxwasay laakiin waxaa jira tartan aanan dhammaanayn oo loogu heelan yahay sidii galgal loogu yeelan lahaa gobolkan xasaasiga ah ee istiraatiijiga ah ee Soomaaliya degan tahay ee shacabka Soomaaliyeed sidii xiriir loola yeelan lahaa wadamada qaarna waxaad moodaa in ay ka horeeyaan kuwa kale wadamana ay sheeda ka eeganayaan waxa ay ku dhamaatana waa arki doonaa وأنا أركض أنا محمد آد بعض ما سنتهي داود ياشوني ما سيهين أنت أيام كسو جبيننا برنامجك داود سياد ولا صعته وركن برنامج جدا معلوماتك أي نسوق منه هديات كعصب تاي برهن إن برشدة أما هوري أنا وحرنين حد كسابير أي نو برنامج كحيجة إن شاء الله أنت كهر رئيسة بتقولي